ما تنتهي على عبد الله عصبلي مدحوينها هيرشبيل asiga sheegtay ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan kadib markii sida warbaahinta hore loogu sii sheegay xilka ay ka qaadeen mudanayaasha tirsan baarlamaanka Hirshabeelle 14 bishan madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusub markuu Beledweyne soo gaaray baad kadib ayuu bahda wardoonka ugu qabtay shir jira ay gudaha magaalada Beledweyne xarunta maamulka gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in madaxweynaha sharciga ah ee Hirshabeelle uu tig yahay isla markaana caasimad gaar ay ugu soo shaqeyn doonaan magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay hadii magaala dawladda ay haysatay laga saaro al-shabaab ay qabsadaan waa in maamulka degmadaasi meesha nabdoon ku shaqeyso oo dawladda ay joogto wuxuu yiri marka magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar waxaan kaga soo qaxay sida argagixisada ay meel u qabsadaan oo loogu soo tago sida ay madaxweynaha shir jira uu ku sheegay waxa kale oo uu sheegay Cali Cabdullaahi Cusub in maalmaha soo uu ku sugnaado magaalada Beledweyne oo kulmo u qaadeen sida waa gartay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle markii uu soo gaarayay Beledweyne socdaalka ayaa ku wehelinay midda hadda madaxweynaha la socdo Beledweyne la timaaday laakiin madaxweynaha kadib uu baa socdo magaalada yimaaday way kana magaalada uu yahay inta badan hadaladiisii waxay ku badnaayeen in uu madaxweynaha sharciga asiga sida hore uu marba weerar ugu qaaday mar kale weerar afka ku qaaday raiisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ah raiisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo sheegay in Xasan Cali Khayre uu yahay nin ku adbiyay suuqii u yaala Hirshabeelle sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxweyne Cabdullaahi Cusub uu yahay ninka sidoo kale markii hore waa sidoo dhigtay nin cadaalad uu ku mooday laakiin uusan ahayn cadaalad ka shaqeeya Soomaaliya sidoo uu leeyahay Cabdullaahi Cusub waa gartay maamulkii Beledweyne iyo sida oo kale kan gobolka socdaalka madaxweynaha uu ku soo gaaray Beledweyne qayb ma ka ahaayeen sida oo kale xubnaha maxay ka yiraahdeen hadalka madaxweynaha markii wax maamulka goobta joogay laakiin gudoomiyaha gobolka ayaa garab fadhiyay markuu madaxweynaha hadlay aan la filayaa kule in sidoo kale uu kulamo kala qabtay madaxweynaha haatan marka madaxweynaha halkee buu ku sugan yahay xarunta maamulka gobolka Hiiraan ee Beledweyne ku sugan yahay amnigiisa waxa si qaas u ilaalinaya ilaala si gooni ah oo madaxweynaha uu kaga soo kaxaystay magaalada Muqdisho madaxweynaha naftirkiisa wuxuu afkiisa ku qirtay in markuu ka soo duulay digida diyuuradaha magaalada Muqdisho adanacade aysan ogeyn dawladda federaalka Soomaaliya oo si wuxuu ku tilmaamay argagixiso oo kala uu kaga soo dhuntay magaalada Muqdisho oo soo yimaado Beledweyne maadaama uu sheegay in dawladda aysan ogoleen in garoonka uu ka soo duulo Cali Cabdullaahi Cusub waa gartay ma jiraan warar warfidiyeenada inay baahiyaan uu u diiday madaxweyne Cali Cusuble Cali Cabdullaahi Cusub wuxuu wariyaasha u sheegay inaysan dhigi karin madaxweynaha hore Hirshabeelle oo ay dhigi karaan madaxweynaha sharciga Hirshabeelle dalaale cidii ka hortimaadana amarkiisa tilaabo cad uu ka qaadi doono uusan ku diri doono sida liiska Xasan Cali Khayre raiisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo waliba xildhibaanada xilka ka qaaday oo kale sidoo Cali Cabdullaahi Cusub